last week asbuucii la soo dhaafay I went to the theater anigu theaterka ayaan aaday buu yiri I had a very good seat fadhi aad u fiican baan qaatay markii theaterka aan tegay the play ciyaartu was very interesting aad bay xiiso u lahayd I did not enjoy it anigu kuma aanan raaxaysan ciyaarta iyada ah a young man nin yar and a young woman iyo naag yar ayaa were sitting waxay fadhiyeen behind me anigu gadaashay they were talking waxay u hadlayeen ninkaas iyo naagtaasi yar loudly si sare ayay u hadlayeen I got very angry anigu aad baan u cadhooday ama aan u xanaaqay I could not bear uma aanan dul qaadan karin it jilayaasha I could not bear here ma aanan maqli karin weeye the actress jilayaasha I turned around waan milicsaday oo waan jaleecay I looked at the man ninkii ayaan eegay and the women iyo naagtii angrily si carale ama si xanaaq leh they did not pay ma aysan bixin any attention wax dareena ma aysan bixin in the end ugu dambayntii ama dabayaaqadii I could not bear it uma aanan dul qaadan karin qayladoodaasi I turned around waan milicsaday haddana again mar kale I can't hear a word war eray ma maqli karo I said angrily ayaan u idhi si carale it's none of your business wax aad ku shaqo leedahay ma ahan shaqadaada ma ahan waxba kaama gelin the young man said ninkii yaraabaa wuxuu u yidhi rudely si madax adayg leh this is a private conversation warheedhe kani waa wada sheekaysi khaasa wiil yari iyo gabar yari uu ka dhaxeeyo lagu yiri ninkii odayga ahaa marka rudely waxa weeye si madax adayg leh weeye rude bay ka timaaday rude waa madax adayg okay madax adayg waa